sidoo kalena idinka caawin doona gudashada hawl maalmeedkiina joogtada ah. waxaa maanta magaalada Jigjiga ka qabsoomay tababarka xeerka xadeynta ciqaabta ee dib loo habeeyay oo ay soo qaban qaabisay maxkamadda guud wariye mas'uul Cabdiqaadir ayaa faalada warkaasina inoo eegaysa. waxaa maanta ka qabsoomay magaalada Jigjiga tababarka xeerka xadeynta ciqaabta ee dib loo habeeyay oo soo qaban qaabisay maxkamadda guud ee dowladdeegaanka Soomaalida. tababarkan uu ujeedkiisu yahay kor u qaadida aqoonta iyo kobcinta xirfadaha garsoorka ayaa loo qabtay garsoorka ka howlgala maxkamadaha sare ee gobolada iyo gudoomiyayaasha maxkamadaha sare ee deegaanka. waxaan bilaabmay tababar aan siinayno gudoomiyayaasha maxkamadaha gobolada fadhiyada dambiyada ciqaabta ee maxkamadaha goboladena ka howlgala fadhiga maxkamadda guud ee dib u eegista shanta garsoor loo yaqaano iyo fadhiga dambiyada ee maxkamadda guud ka howlgala nuxurka ugu muhiimsan ee tababarkan aan sameynay waxa weeyaan maxkamadda guud ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ayaa xilli dhow soo saartay xeerka xadeynta dambiyada Itoobiya ku jira xeerka dambiga ee ay Itoobiya soo saartay xeer loogu talagalay oo la yiraahdo xeerka xadeynta ciqaabta ay maxkamadda guud ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya soo saartay taasi waxay ka duwan tahay sida aynu wada ogsoonahay qodobada xeerarka dambiyada amoojinaya inta badan qodobada xeerarka dambiyada amoojinaya inta badan ciqaabaha ay kala duwan waxay leeyihiin gaab salahan 1 sano ilaa 3 sano 4 sano ilaa 6 sano intaas ayay leeyihiin dan waxa dhici jirtay xeerkan xadeynta ee imika cusub la sameeyay ka hor ama xeerkii hore ee kan ka horeeyay intii ka horeysay waxa dhici jirtay hal dambi oo laba goobood oo kala duwan ka dhaca salahan laba deegaan oo kala duwan ama laba goobood oo kala duwan ka dhaca in garsoorayaal isku mid ah oo isku khibrada isku aqoon ay ka soo saaraan laba go'aan kala duwan halkii ay ahayd inay ama 3 sano ku xukumaan ama 4 sano ku xukumaan ama ay kaba yareeyaan taasina ma ahayn marka arrin ay keentay ama khibrad la'aan ama aqoon la'aan khibrad ay aan arrin ay keentay ma ahayn xeerarka ayaa kolka hore dhigay laga bilaabo intaasno ilaa intaas sano marka inta u dhaxaysa ayuu awood u lahaa garsoorayaasha taasi maadaama ay kaliftay marka in hal dambi oo isku mid ah deegaamada maxkamadaha ka jira ay ka soo saaraan go'aamo kala duwan muhiim waxa noqotay in la soo saaro xeerka xadeynta dambiyada loo yaqaan kaasoo markii ugu horeysay la soo saaray 2006 bishii labaad xeerka xadeynta ee 2006 la soo saaray wuu wanaagsanaa waxyaabo badan buu soo taray laakiin isagana markii daraasaad lagu sameeyay waxa jira oo la darsay oo la ogaaday in ay jiraan qodobo dambiye ah oo xeerkaasi aanu taabanaynin ama aanu khusaynin ama aanu waxba ka oranaynin isla kuwaas marka dhaliilihiisii jiray ayay sii wadeen oo garsoorayaasha ama maxkamadaheena kala duwan dalka iyo deegaankuba waxa ku kaliftay ama waxa ku soo dhacday inay ka soo saaraan go'aamo kala duwan iyadoo taa laga duulay marka hadda 2017 dhamaadkiisii ay maxkamadda guud ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya soo saartay xeerka xadeynta kii ugu dambeeyay markaas qasab waxay noqotay inaan tababar ku siino aan maxkamadaheena iyaguna si ay brief uga qaataan inaan af Soomaali ku turjino xeerka oo aan u qaybino maxkamadaheena heerarkooda kala duwan marka gudoomiyaasha gobolada waa maxkamadaha gudoomiyaasha maxkamadaha gobolada ka aweeyana kuwa degmooyinka iyo garsoorayaashaba waan gaarsiin doonaa marka maanta oo arrintan aan ku guda jirno tababarkeedii nuxurka ugu muhiimsan wuxuu ahaa in xeerka xadeynta cusub aan faham buuxa ka siino maxkamadaheena gobolada fadhiyada dambiyada maxkamadaheena gobolada iyo maxkamadda guud ka howlgala intaba ujeedka ugu muhiimsan kalena waa in iyagu faham ka qaataan kadib maxkamadaheena kala soo dhaadhacaya mas'uuliyiinta maamulka wakaalada iibka iyo maamulka hantida dawladda ayaa shaqaalaha ka howlgala xafiiska u qabtay tababar lagu dhiirigelinayo shaqaalaha wariye Nuur Xuseen ayaa faalada warkaasina inoo eegay.